maamulka gobolka mudug maamulka degmada gaalkacyo iyo takhaatiirta gobolka qaar ka mid ah ayaa ku baaqay in la howlgeliyo isbitaalka bacaadweyn kaas oo aan shaqayn hadda. isbitaalkaas oo ah kan kaliya ee ku yaala bacaadweyn oo hoos timaada degmada gaalkacyo 50 kilomitirna ka xigta dhinaca waqooyi. kulan uu soo abaabulay gudoomiyaha deegaanka bacaadweyn oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka mudug, gudoomiyaha degmada gaalkacyo, takhaatiir iyo qaybaha bulshada ee bacaadweyn ayaa loogu baaqay wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland, ganacsatada iyo qurba joogta Puntland in laga wada qayb qaato sidii loo howlgelin lahaa isbitaalka bacaadweyn. kulankaasi ayaa waxaa ka warbaxay ujeedadiisa gudoomiyaha deegaanka bacaadweyn Fuad Yaasiin. maanta munaasabadeena waxay ku saabsan tahay u howlgelida baahida caafimaad ee isbitaalka bacaadweyn. isbitaalkaasoo baahi weyn ay u qabaan bulshada reer bacaadweyn iyo inta la halmaasha oo ka degan gidiyadeeda kala duwan. isbitaalkaasoo baahi weyn loo qabo, isbitaalkaasoo dayactir u baahan nooc walba iskugu jira, hadday tahay mid caafimaad, hadday tahay mid dhismood iyo hadday tahay mid caafimaadka asaasiga. waxaan maanta munaasabadan oo kale aan kaga faa'iideysanaynaa dhammaan gobolkii, degmadii iyo isku duwihii oo agaasimihii isbitaalka gobolka mudug. maanta munaasabadan waxaan kaga faa'iideysanaynaa inay u howlgalaan baahida caafimaad ee isbitaalkan uu qabo, dayactirka uu u baahan yahay. isbitaalkaas oo aan lahayn shaybaar male. duqa degmada gaalkacyo Cabdicasiis Jaamac Guuleed ayaa ku baaqay in laga wada qayb qaato sidii loo howlgelin lahaa isbitaalka magaalada bacaadweyn. waxaan leeyahay jaaliyadaha banaanka oo muxuu ahayd u dhashay gobolkan ama muxuu ahayd deegaanka muxuu ahayd gaalkacyo in maarta ay soo caawiyaan isbitaalka sidii maartay isbitaal shaqeeya dhinac walbaba looga dhigi lahaa. hadday noqoto muxuu ahayd xagga dayactirkiisa guud, hadday noqoto qalabka yaala, hadday noqoto muxuu ahayd shaqaalaha ka shaqeynaya laftigooda muxuu ahayd wixii ay qaadan lahaayeen. waxyaabahaas oo dhan baahiyaha jira inay maartay jaaliyadaha muxuu ahayd u dhashay muxuu ahayd reer Puntland inay muxuu ahayd ama reer mudug ama gaalkacyo aan iraahdee inay ka jawaabaan baan doonaynaa. Dr. Maxamed Xuseen agaasimaha isbitaalka guud ee gobolka mudug ayaa asaguna ka hadlay muhiimadda uu leeyahay isbitaalkaasi in la howlgeliyo. adeegkan waa adeeg aad u qiimo badan, dhismo aad u fiican ayaa meeshan ka muuqda oo runtii isbitaal ku habboon. waan ognahay degmada gaalka ee bahalkii deegaanka maxaa bacaadweyn wuxuu u jiraa 50 iyo xogaa kilomitir muxuu ahaa degmada 48 kilomitir wuxuu u jiraa magaalada gaalkacyo. gaalkacyo isbitaalkeeda ku yaal marka ma wada xamili karo dadkoo dhan isaga in loo soo gudbiyo. marka deegaanada ku wareegsan muxuu ahaa magaalada weyn ee gaalkacyo waxa anaga naga go'an saadana isbitaalada inaanu xoojino si markaas culayska na soo gaaraya oo dadku u noqdo waxa iyagu la macaamili karaan inta levelkooda ah inaynu ku qalabayno oo aan training siino. waxaan hadda hartiina ka ballan qaadayaa inaanu keeni doono campaign takhaatiir ah oo isbitaalkan kiciya. Kusimaha gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Muuse Nuuriire ayaa asaguna ka hadlay sida loogu baahan yahay isbitaalkaasi in la howlgeliyo. Maxamed Xuseen waxaad u aqoonsantiin agaasimaha isbitaalka la yiraahdo. waxaana laga rabaa inuu yahay agaasimaha caafimaadka ee degmada. gaabka bannaan khalad weeye. waxa tira isbitaalka meel kama diiwaan gashana. isbitaalka intaan tira la eg oo meel ka diiwaan gashanayn haddii maamul dhiman weeye taasi. wasaaradda caafimaadka aanu la kaashan doonaa haddii alla idmo kulan baanu qaban doonaa. nidaamka wasaaradda caafimaadka oo dhisan yaanu idiin iman doonaa haddii ilaahay idmo. isku duwihii maqan baanu hadda sugaynaa. waxaanu agaasimaha inay hoos timaado, agaasimuhu u kuurgalo baahida ka jirta. hal kaleeto waxay ka dhacday meelaha aan degmooyinka waaweyn ahayn laba shay oo laga wada dhisay oo dadkii dibadaha u baxay iyo hay'ada ay dhiseen oo ama codsiga bulshada ku timaado hay'adaha lala hoos garo ama dadkii dibadaha aaday oo deegaankii u roonaaday yiri isbitaalada iyo jaamacadaha labadaba dib bay ku qabaan. Burhaan Maxamed Cabdi, Puntland TV, Gaalkacyo.